السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دردارنكي ابن قيم الجوزي يسيدو كله بوغو قري ويلكيسا. ابن قيم الجوزي عالمكي وينا الله نحرسه مر والبو قراي كتابديس wuxuu sameyn jiray qalinka uu ku qoray kitaabadiis markuu uu qoranayo qashinka yarka ee ka soo daato buu xawaas yariisku meel ku agurin jiray markaas wuxuu dhigi jiray hadii aan dhigto ee loo baahdo in meedkayga biyaha lagu meerayo la qandiciyo ha lagu qandiciyo xashiishka yariiska ah ee meesha aan loo qashinka yariiska meesha aan loo halkaas waxaan ka dareemeynaa in qalinka maadaama qof walba uu yaqaan qalin qoriga maanta marka qalin qori ah qortid qashinka ka soo baxay wax yar waa laakiin waxa qiyaasta wax biyo qandicin kara inta leegi aad ay u badan yihiin marka waxaan ka fahmeynaa ibn qayyim al-jawzi sidoo qoraalka u jeclaa sidoo cilmiga kitaabka mar walba u qori jiray ayaan ka baranaynaa soo kale waxa jirta qiso kale oo cajiib ahayd isagana oo maalin maalmaha kamid ah waxa uu soo koriyay wiilkiisa wuxuu soo baray markuu wiilkiisa wax soo baray baa wuxuu arkay wiilkiisa seeg ah oo sidii laga rabay in waqtiga dayacay wiilkiisa u fiiriyay wuxuu sameeyay buug buu qoray buug muxuu bixiyay matqaana nasteexada ilmaha ayuu bixiyay asagoo awoodo inuu wiilkiisa u sheego waxaan iska daa wuxuu doorbiday in wiilkiisa iyo dhammaan dadka kaleba uu uga faa'iideeyo wuxuu wiilkiisa ku dhibsanaa uu arkay markaas wuxuu qornaa nasteexada ilmaha buug ah halkaas waxaan ka fahmeynaa qoraalka soo u jeclaa ibn qayyim al-jawzi qisadan waxaan ka soo xigtay buuga habeenka ma tagin kuwii hore. Assalamu alaykum wa ma santiin.